السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaanba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah iyadoo lagu jiro maalmihii uu qabtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kooxda TPLF in ay isku soo dhiibaan ciidamada kaga sugan gobolka Axmarada ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa uu sheegay afayeenka kooxda TPLF in ay dawladda Mareykanka kala shaqeynayaan sidii sharci loo horkeeni lahaa madaxda ugu sareysa dalka Itoobiya waa xukuumadda Dr. Abiy Ahmed. sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay xukuumadda Itoobiya in ay ugu yaraan 14 bari ku soo afjarto dagaalada xooggan ee ka socda dalka Itoobiya haddii kale saraakiisha ugu sareysa xukuumadda Dr. Abiy Ahmed sharciga la horkeeni doono ama cunaqabatayn heer caalami ah lagu soo rogi doono. sidoo kale maalinnimadii shalay ee dagaalo xooggan oo dhaxmaray Canfarta iyo Soomaalida ayaan maanta la soo sheegin wax dagaal ah inuu dhacay hase yeeshee abaabul weyn ayaa laga dareemay xadka u dhaxeeya labada dawlad deegaan. sidoo kale magaalada DC ee gobolka Axmarada ayaa la soo sheegay in halkaas dagaalo goosgoos ah ka socdaan iyadoo dawladda federaalka soo sheegayso in gabi ahaanba TPLF kaga ay taalroonaatay dagaaladii ka socday gobolka Wollo. waxa uu wali khilaaf weyn ka dhex taagan yahay madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. sidoo kale markii ugu horeysay maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in ay dhexdhexaadinayaan khilaafka weyn ee ka dhex taagan dawladda Soomaaliya laguna xalin doono caasimadda Puntland ee Garowe. qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan aad warkeena ku maqli doontaan. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 19 bisha 9 2021 ayadoo lagu guda jiro maalmihii loo qabtay TPLF inay ciidamadooda gobolka Axmarada ku sugan isku soo dhiibaan dawladda federaalka ayaa waxa la soo sheegay TPLF inay markaa ka sii dambayso ay ku hajamayso inay sharciga horkeeni doonto saraakiisha dawladda federaalka. afayeenka TPLF ayaa xalay mar uu waraysi siinayay TV laga leeyahay gobolka Tigray ayaa waxa uu sheegay inay dalka Mareykanka ama dawladda Mareykanka kala shaqeynayaan sidii sharciga loo horkeeni lahaa madaxda dalka Itoobiya ugu sareysa waa sida xukuumadda uu Dr. Abiy hogaaminayay. afayeenka ayaa waxa uu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha Mareykanka ee ahaa inuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya loogu baaqayo ugu yaraan 14 bari inuu ku soo aftiro dagaalka dalka Itoobiya ka socda miiska wada hadalkana la iskugu yimaado. sidoo kale afayeenka ayaa hadalkiisa ku daray inuu dhibka ka taagan gobolka Tigray iyo xasuuqa maatida iyo ciyaalka iyo haweenka lagu la kacayo inuu ka dambeeyo Dr. Abiy Ahmed. afayeenka ayaa waxa uu yiri dawladda Mareykanka waxaan ugu hambalyeynaa sharciyada ay soo saartay ee ka dhanka Dr. Abiy Ahmed. afayeenka ayaa waxa uu yiri Dr. Abiy Ahmed wuxuu mas'uul ka yahay dagaalka ka socda dalka Itoobiya asagana dalkan galiyay. afayeenka ayaa wuxuu yiri Dr. Abiy ayaa dagaalkan galiyay kana dambeeyay dagaalka dalka Itoobiya ka qarxay ee muwaadiniinta Itoobiya isku baabiinayaan. waxaana afayeenku sheegay inuu Dr. Abiy kow ka yahay cidda sharciga loo horkeenayo dawladda Mareykankana ay TPLF kala shaqeynayso sidii sharciga loo horkeeni lahaa. afayeenka ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka Itoobiya inay maatida iyo ciyaalka iyo haweenka beegsanayso in dagaal diyaar u ahayn sida ugu dhaqsaha badan inay dawladda Mareykanka kala shaqeynayaan sidii sharciga loo horkeeni lahaa anaguna aan naqaano sidii argagixisada sharciga loo horkeeno. afayeenka ayaa waxa uu yiri TPLF waxay ku guda jirtaa dagaalkii ugu dambeeyay ee dalka lagu kala bixi lahaa dalkana laga saari lahaa xukuumadda Dr. Abiy Ahmed. hase yeeshee Dr. Abiy Ahmed xukuumaddiisa ayaa dalka Mareykanka waxa ay ku eedeynaysaa inay kala safaday TPLF una gacan hadinayso TPLF shacabka Itoobiya gaajada iyo macaluushu ku hawatayna dalka Mareykanka inuu qayb weyn ka qaatay. xukuumadda Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa ay sheegaysaa inuu dalka Mareykanka la safan yahay TPLF si jiritaankeeda dagaalkan ay si wadana inuu Mareykanku garab ku siinayo. Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri dalka Mareykanka waxaan ku eedeynaynaa inuu TPLF la saftay argagixisadana uu caawinayo dalka Itoobiya kharibka iyo baaba ku haysta. Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri anagu markasta waxaan isku daynaa dalka Itoobiya inuu nabad noqdo oo barwaaqo la gaaro. hase yeeshee dawladda shisheeye oo Mareykanku kow ka yahay ayaa garab waxay siinayaan TPLF oo dagaal xooggan ugu jirta. hase yeeshee Dr. Abiy Ahmed waxa loo qabtay 14 bari inuu ku soo afjaro dagaalka mana muuqato inay hadda Itoobiya 14 bari dagaal lagu joojin karo.
sidoo kale dagaalo xooggan ayaa laga soo sheegayaa duleedka magaalada DC ee caasimadda gobolka Wollo. caasimada gobolka Wollo ee deegaanka Axmarada ayaa laga soo sheegayaa inay dagaalo xooggan ka socdaan halkaasi. dagaaladan ayaa waxa u dhaxayaan huwanta dowladda federaalka Itoobiya ay hogaaminayso iyo kooxda TPLF. loolanka magaaladan ayaa waxay tahay magaalo istiraatiiji ah oo isku xidha wadooyinka waaweyn ee isku xidha gobolka Axmarada. sidoo kale TPLF ayaa waxay ku dadaalaysaa inay wadada weyn ee loo yaqaan 22 Headway inay qabsato oo ay u gudubto magaalada Gondar. TPLF oo soo sheegay maalmihii ugu dambeeyay in aad loo ragaadiyay gobolkan aad looga saaray intiisa badan ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda federaalka inay qorshe weyn ay soo abaabuleysay uu fashilmay. hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxay sheegaysaa Abiy Ahmed wax uu la maaganaa TPLF inuu gabi ahaanba fashilmay kana hortagay dalka Mareykanka ayaa mar walba wuxuu ahaan jabaa saraakiisha ugu sarreysa dalka Itoobiya isagoo sheegay in cunaqabatayn heer caalami ah la saari doono. hase yeeshee TPLF ayaa aad ugu naaloonaysa waxa uu Mareykanku soo saarayo iyo hanjabaadaha. sidoo kale dagaalka ayaa waxa uu ku sifayaa tuulooyinka u dhow magaalada DC ee caasimadda gobolka Wollo. TPLF-na maxay madaaficda ku garaacaysaa deegaanada ka fog meelaha uu dagaalku ka socdo. dowladda federaalka ayaa maalinka ka dambaysa waxay soo tababaraysaa ciidamo aad u fara badan iyadoo sheegaysa inay ciidamadaasi noqon doonaan kuwa ka xoreyn doona TPLF gobolka Axmarada. sidoo kale taliyaha ciidanka lugta militariga dalka Itoobiya ayaa maalinnimadii shalay waxa uu sheegay asagoo ciidamo badan tababar soo xidhayay inay ciidamadaasi noqdaan sidii dhalinyaradii hore dalka Itoobiya asagoo ku soo halqabsaday ciidamadii dalka Soomaaliya waqtigii dagaalkii 77kii inay xoreeyeen dhalinyaro yar oo sidoo kale loo soo abaabulay inay ciidamadii Soomaaliya hubka ka furteen ayaguna ay hubka ka furtaan kooxda TPLF. sidoo kale deegaanka Soomaalida iyo Canfarta ayuu maanta wax dagaal ah ka dhicin. hase yeeshee waxaa la soo sheegay inuu abaabul weyn halkaasi ka socdo oo dagaalada soconaya saameyntooda leh. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah wuxuu wali khilaaf weyn ka dhex taagan yahay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble. khilaafkan oo ku soo bilowday kiiskii sargaalada Ikraan Taaliil ayaa la soo sheegayaa inaan wali wax xal ah laga gaarin. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa markii uu akiyay taliyihii NISAD uuna ka joojiyay shaqadiisii una magacaabay taliye kale ayuu madaxweynaha Soomaaliya arrintaasi ka soo horjeesaday asagoo markii dambe madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyihii NISAD u magacaabay la taliyihiisa qaranka. sidoo kale markii ugu horeysay waxaa ka hadlay maamulka Puntland khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka madaxdeeda ugu sarreysa. maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in khilaafkaasi lagu xalin doono magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. taniyo kulanti dambe wacan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.